ملايين برنامج ee ku jira Play Store Android waxaa laga dhaxli karaa kumanaan barnaamijyo oo waxtar u leh nolol maalmeedkeena. I'm252 wuxuu bilaabayaa musalsalka soo xulista barnaamijyada ugu fiican ee waxtarka leh. Muuqaalkana waxaan kugu soo gudbin doonaa 3 barnaamij oo aan u arko inay ku wanaagsan yihiin. Dhextaalka kadib u diyaar noqo tirsigooda. intaan tagin ka hor barnaamijyada saddexda ah halka kala soo degi lahayd aan ku tilmaamo. Waa qaybta qoraalka ee la socda muuqaalkan. haddii barnaamijyada qaar kuu shaqayn waayaan adeegsan linkiyada kale si aad ula soo degto markana barnaamijka saddexaad Tochi barnaamijkan waxa uu kuu fududeynayaa in aad sida ugu degdeg badan u adeegsato tooshka telefoonkaaga xitaa haddii uu telefoonkaagu xidhan yahay shaashaduna dansan tahay waxaad kaliya isla riixaysaa batamada codadka ee telefoonkaaga waa intaasoo adeegsa tooshka markiiba barnaamijkan magaciisa waa Tochi kala soo deg Play Store-ka qaybta qoraalka ee muuqaalkana ka raadi marka aad furto barnaamijkan Tochi batanadan ayaad ka daari kartaa kana damin kartaa tooshka si aad uga shaqaysiiso in labada batan ee codadku ku shaqeeyo tooshka halkan on ka dhig kadibna halkan kale on u raaci waa intaa hadeer haddii aad labada batan codadka isla taabato tooshka ayaa kuu shaqaynaya haddii aad ku celisana tooshka ayaa kaa damaya barnaamijka labaad Draw ma ku caajistay barnaamijka aad ka wacato taleefanada ama aad ka baarato nambarada kuu kaydsan barnaamijku bedeli kara aadna u qurxoon waa Draw wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ugu fiican ee ku jira Play Store-ka inkastoo barnaamijku weyn yahay haddana sharaxaadiisa waa aan soo koobayaa soo kicinta barnaamijka laba midkood baad samayn kartaa inaad sida caadiga ah qaybta barnaamijyada ka soo kiciso iyo in aad ka soo kiciso dhibcahan markasta shaashada ka muuqda tan waxay kuu suuragelinaysaa in barnaamijkan aad adeegsato adiga oo xitaa barnaamijyo kale ku dhex jira aadanna iska xirin marka aad soo kiciso labadan qayb ayuu leeyahay nambaradaada oo dhinac ah iyo wax aad ku samayn lahayd oo dhinaca kale ah soo kicistiisaba dadka aad ugu wicitaanka badan tahay ayuu kuu soo saarayaa guud ahaan inta kuu kaydsanna halkan ka fiiri intaad dhawaan wacdayna halkan ka fiiri qof gaara miyaad raadinaysaa halkan ku qor nambar cusub miyaad wacanaysaa bidixda hoose taabo halkanna calculator degdeg ayaad ka heli kartaa si aad qof u wacdo kaliya taabo qofkaas kuna soo jiid ilaa aad ka keento qaybta wicista haddii aad tusaale ahaan kala hadli doonayso WhatsApp ama Messenger kaliya ku soo jiid iconkiisa qof miyaad fariin u diraysaa raadi magaca kuna soo jiid iconka SMS-ka una qor horeyna ka dir haddana ma baahnid inaad wacdo laakiin in lagu soo xusuusiyo aad u baahan kartaa sax kaliya jiid magaca qofka ilaa aad halkan ka tagto sax waqtiga xusuusinta oo dheh set reminder waxyaabaha aad samayn kartaa kaliya maaha intan haddii aad halkan soo jiid waxyaabo dheeri ah oo aad samayn karto ayaad arkaysaa tusaale ahaan inaad WhatsApp-ka si toos ah qof ugu wacdo ama codkiisa aad duubato marka aad la hadlayso iyo waxyaabo kale oo ka sii dheeri halkan waa settings waxyaabo badan ayaa ku jira tusaale ahaan naqshada muuqaalka barnaamijka ayaad halkan themeska ka bedelan kartaa xitaa sawir aad jeceshahay aad saaran kartaa isagana naqshado badan oo qurxoon ayuu leeyahay haddii uu ku cajabiyo barnaamijkan inta kale adiga ayaan kuu daayay dadka isticmaalana iPhone-nada mar dhow Draw ayaan ku soo fool leh welise ma uusan soo gelin App Store-ka Apple barnaamijka koowaad Launchify waa iga su'aalay barnaamijyo gaar ayuu qof kasta xiiseeyaa sax badanaana waqtigiisa kale oo ku laalaabta adeegsigiisa barnaamijyada aad sidaas oo kale badana adeegsato soo kicintooda waxay u baahan tahay raadin gaar ah laakiin haddii aad adeegsanayso barnaamijka Launchify waxa uu kuu fududeynayaa inaad durbadiiba aad kicin karto barnaamijyada aad xiiseyso waa sidee laakiin barnaamijkan waxa uu qiimeyn ku sameynayaa barnaamijyada aad badana adeegsato lixda kaalinta koowaad gasha ayuu qaybta notification-ka kuu soo dhigaya oo kama baxayaan adigoo barnaamij kale adeegsanaya haddii aad u baahato barnaamijyadaas mid ka mid ah
kaliya qaybta ogeysiisyada ee sare ayaad soo furaysaa. waa un ka xulo midkaad ka doonto hana kuu shaqeeyo degdegsiinyo. wayga intaa 3 barnaamij aan maanta kugu talagalay. bishiiba mar ayaan sidan oo kale soo qaadan doonaa 3 barnaamij oo arko inay kuu fiican yihiin. intaana kala teginse ha ilaawin inaad muuqaalkan la wadaagto asxaabtaada kuwooda aadka u danaysana ugu yarad qaybta hoose faallooyinka si ay u kala xushaan 3 barnaamij. annayaanan mahadcelinta kaa ilaawini haddii aadan ka mid ahayn bahdan im252 maxaad ka qabtaa inaad nagu soo biirto oo aad boggayga facebookga like garayso youtube-kana subscribe garayso. inta muuqaalka xiga laga gaarayo isii faraxsanow.